بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. maantayto waxaa shir isugu yimid guddiga amniga gobolka Mudug. Shirkaas waxaa looga hadlay waxyaabo badan oo dhacdooyinkii ugu dambeeyay magaalada ka dhacay. Dhacdooyinkaas waxaanu ka soo saaray qodobadaasi waa dhamaantood kuwo aan u aragnay in ammaanka magaalada ay dan u yihiin iyo maslaxadda ummadda. Qodobada waxaa ugu horeeya lambar 1 in labadii dhacdo iskaga dambeysay oo midna 24kii ay dhacday midna ay 28kii oo shalay ahayd ay dhacday in ciddii ka dambeysay falkaas oo u eedeysan in sharciga la hor keeno. ciidamada ammaanka iyo hay'adaha sharciguna waxay amran yihiin in ay sharciga hor keenaan. labo in hadii la ku roon yahay la mamnuucay wax hub ah magaalada in lagu dhex wato ba guddiga amnigu go'aamiyay. ayadana ciidamada ammaanku waxay amran yihiin wax hub ah inaan magaalada lagu dhex wadan oo ay mamnuuc tahay. qodobka saddexaad waxaa la mamnuucay wax ciidan beeleed ah magaalada gudaheeda iyo banaankeeda midna inaysan isku urursan karin. laamaha ammaankana waxaa la farayaa in ay ka howlgalaan oo ay hadii la ku roon yahay ka howlgalaan meelaha ciidan beeleedyadu hadii la ku roon yahay ay ka jiraan. qodobka afraad waxa weeye gawaarida yaryar oo muraayadaha madowle oo beersoolka lagu xiro in ayaguna mamnuuc ay yihiin laga bilaabo maantayto sabab la xiriira amniga. intaas afarta qodob baa guddiga ammaanku go'aan ku gaaray. guud ahaan waxaan ka tacsiyeenaynaa wixii dhacay intii dhimatay Allah u naxariisto inta noolna inta dhaawacana Allah u boogadhayo. inta markay ka soo harto dadka magaalada ama ganacsato ahaadeen ama culumaha ahaadeen ama isimaha ahaadeen ama nabadoonaha ahaadeen ama dhalinyaraha ahaadeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada isboortiga waxaan ugu baaqaynaa in ay nabadda ka shaqeeyaan ciidamadana la shaqeeyaan. waxaa jira hadii la ku roon yahay kooxo ka faa'iideysta dadka ama dano argagixiso leh ama dano kale leh. kooxahaasna in laga feejignaado baa la rabaa. dad sama jeclaa oo wanaagga doonaya oo maslaxadda ummadda ka shaqeynaya baa la rabaa in hadii la ku roon yahay ummadda ay ka dhex shaqeeyaan. kuwa fidnada ka shaqeynaya waxa la rabaa inaynu iska wada ilaalino oo argagixisada ugu horeyso. danahay leeyihiin waan garanaynaa inay ku soo dhex dhuntaan bay rabaan dadka inay qabaa'ilada kala dilaan bay rabaan inay reerkii nin laga dila ma reerka kale inta ka dilaan ay yiraahdaan ninka waxay idinka dilay reer hebel sidii dhacdada ahaan jirtay inay yiraahdaan bay rabaan. amnigu gacan birahan ku dhigaynaa dhaqdhaqaaq dambe oo khalkhal gelinaya amnigana waxaan ummadda u sheegaynaa inuusan dhici doonin insha Allah taala. kuwa arrimaha noocaas ku hawlan inay ummadda ka dhex shaqeeyaan oo dhib ka dhex abuuraan oo ka dhex faa'iideystaan oo argagixisada iyo qurunka ay soo celiyaanna waa ognahay talaabada ku haboon baana laga qaadayaa. hay'adaha ammaankuna waxay farayiin dadka noocaas iyo hawlaha noocaas ku hawlan oo xogahooda la hayo inay talaabo ka qaadaan. isimada iyo nabadoonnada iyo cuqaashana waxaan ugu baaqayaa sidii dhaqanku ahayd ama islaamnimadu ahayd ama ehelnimadu ahayd oo laynagu yaqaanay in dilay ku roon hawshan qaybtooda iyo doorkooda ay ka qaataan. laakiin amniga inaan gacan ku dhigno oo aan amniga dilay ku roon cid kasta oo khalkhal gelinaysa aan talaabo ka qaadno baan go'aansanay. ciidamada ammaankuna waxa ay amran yihiin laga bilaabo maantayto in ay ka howlgalaan qodobadaasna ay ku howlgalaan guud ahaan amniga magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug. waxa ciidamada ammaanka la farayaa inay gacan adag ku dhigaan ayna u xil saaran yihiin ammaanka magaalada lagana xisaabtami doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.